Sharma boy oo ka guuleystay fanaaniinta dhowr ah ama fanaaniinta uu la tartamay fanaaniintaas oo ahaa ilkaas qays iyo Wisby iyo Jesse boy fanaaniintaas oo tartan fara badan oo ka dhaxeeyay ayaa tartankaas waxa ku guuleystay ama kaalinta koowaad ku soo baxay fanaan Sharma boy kaalinta labaad ama dhanka committee-ga ama bulshada taageerto ama bulshada xiiseyso fanaaniintan oo dhanka raabkooda xiiseyso waxa kaalinta labaadna ku soo baxay fanaanka kale ee Wisby sida la wada ogaa ama tartankii ka dhaxeeyay fanaaniintan oo dhanka raabka sida badana ay dadka ay ugu falceliyeen ama ay dhanka committee-ga ay jawaab ahaan ugu bixiyeen fanaanka u qalma in uu yahay 2020 Raabarka sanadka ama Raabarka Soomaaliya waxaan ku guuleystay sida hore u soo sheegnay fanaan Sharma boy laakiin just waxa la yaab noqotay ama just ay la yaab weyn ku noqotay fanaaniinta kale in uu fanaankaas kaalinta koowaad galo ama just uu ka hormaro oo isaga ahaan uu kaalin mar 1 ku soo baxo iyagana ay kaalmaha dambe ama kaalmaha isku xigeen waxaana kaalinta labaad ku soo baxay fanaan aan loo maleysan karin oo xitaa just xitaa lagu fikirin in uu kaalinta labaad soo gali karo ama xitaa uu kaalmaha hore soo gali karo fanaankaas oo ayaadan dambe ama waqtiyadan dambe dhanka raabkiisa ama dhanka oo dadka taageerayaashiisa soo gudbinaya heeso aan kala dhicin iyo muuqaalo oo aad iyo aad looga shaqeeyay badana dhanka muuqaalada waxay dadka badana ku dhaleeceeyaan in ay u duubaan ajaanib laakiin ay muuqaaladiis ay muuqaalo aad iyo aad u quality sareeyo ama dhanka muuqaalkooda ay yihiin 100% oo dheeryahay fanaaniinta kale in muuqaal quality sareeyo ama qofka bilaadanka uu ku caajisaynin oo qof markaas heestiisa dhageysanayo ama heestiisa xiiseeyo oo ilaa bilow ilaa dhamaad heesta ay ku soconayso kaalinta labaad waxa ku soo baxay fanaan Wisby lesma dhaheen ama jisa qof ku fikiraysa malahan kaalinta labaad in uu fanaankaas ku soo baxayo oo noqonayo fanaanka kaalinta labaad oo dhanka raabka just badana dadka waxay aad iyo aad islahaayeen in uu kaalmaha labaad ama kaalinta kood gali karo fanaan ilkaas qays laakiin taas mayn dhicin waxaana dhacday in uu fanaanka Wisby oo kaalinta labaad soo galo oo just oo Jesse boy iyo ilkaas qays iyo waxyaabaas uu cod badnaado ama uu ka taageero badnaado waxaana taas keeni karo in waayihii dambe ama bilooyinkii dambe waxa qofta just dhanka update ee badana muuqaaladiisa ama dhanka hesiisa ee badana ahayn kuwa aad iyo aad u quality sareeyo ama update ama isbuuci oo isku digi karo inuu halay soo qaado oo soo qaadayo marka sawaas kale ayaa kalifi karo in oo taageerayaal aad iyo aad u far badan ama bulshada aad iyo aad u far badan in sidaas ku helo heestii oo kusoo aanbaxay ama ebil isigoo caan ahaa laakiin heestii ee bulshada Soomaaliyeed ee aad iyo aad ku baratay heestaas oo ahayd mar hore sameeyay waxay